waxaa lagu soo waramayaa in dalka Suudaan uu ka socdo isku day afgambi iyadoo military aan la aqoon isku hareereeyeen guriga ra'iisul wasaaraha wadankaasi Cabdalla Hamdok. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in xabsi guri la geliyay ra'iisul wasaaraha, sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada ay xireen 4 ka mid ah golaha wasiirada iyo qof rayid ah oo ka tirsan dawladda ku meel gaarka ah ee Suudaan. waxaa dhanka kale wararku sheegayaan in xabsiga loo taxaabay la taliyihii dhanka warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan, iyadoo sidoo kale hawada laga saaray qadkii internetka ee magaalada caasimadda ah ee Khartoum. ururka xirfadayaasha Suudaan oo middo bilooyin ah waday dibadbaxyadii horseeday in xilka laga tuuro madaxweynihii hore ee Suudaan Umar al-Bashir ayaa haatan shacabka ugu baaqay inay isugu soo baxaan wadooyinka si ay uga hortagaan inqilaabka military. khamiistii kumanaan kun oo qof ayaa dibadbaxyo ka dhigay caasimadda Suudaan si ay taageero ugu muujiyaan dawladda ku meel gaarka ah. dhanka kale waxaa jiray dad kale oo taageero u muujinaya militariga isla markaana ugu baaqay inay afgambiyaan dawladda ku meel gaarka ah. waxay ku eedeeyeen inay fashilantay. waxay xiisad ka dhex taagnayd militariga iyo shacabka Suudaan maadaama labada dhinac ay qayb ka yihiin dawladda ku meel gaarka ah ee la dhisay sanadkii 2019 si dalka looga jiheeyo doorasho. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dad taageerayo dawladda rayidka ah ay isugu soo baxeen wadooyinka dalkaasi halka militariga ay isugu dayayaan inay ka hortagaan.